waxaa magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika soo gaaray qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalkani Koonfur Afrika Maxamed Cali Mire waxaana gagada diyaaradaha ee magaalada Johannesburg ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka socotay safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika iyo qaybaha kala duwan ee bulshada odayaal waxgarad dhalinyaro iyo haween inta kadib qunsulka ayaa saxaafadda kula hadlay markii uu gagada diyaaradaha ee magaalada Johannesburg uu ka soo degay أبطأني كعايش ومدى الصومالي ميرو بيجوكتو دولا إن السفارة داوي حاجة كان شغالة والسفير وبجيري السيد حسن شريف الله حولها الصعوبة أيام المياه معاوي وأجل دولا عاوش لنبا يعني وحول بلوة لكن waxaa ka soo qof kasta oo anaga naga mid dadaalkiisa qaybtii kaga aadanay anuu qaybtii ka galaya duula meelaayna ka qoraya Soomaaliyeed ka codsanaya in qof walba qoyskiisa waajibaadkiisa ka soo kadib qunsulka ayaa loo kaxeeyay hotel Nuura halkaas oo uu kula hadlay dadweynihii garoonka ku soo dhaweeyay waxaana goobtii lagu soo dhaweynayay ka hadlay Ibrahim Qaxwo oo kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada tani Johannesburg soo dal qunsul ku sugeeyay hadana Johannesburg soo dhaw ee hoolana kaas korbax farjino front ugu dambeyntiina qunsulka oo la hadlay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ugu horeyn u mahadceliyay shacabkii garoonka ku soo dhaweeyay wuxuuna ballan qaaday wada shaqayn dhab ah iyo inuu si cadaalad ah ugu adeegi doono Soomaalida ku dhibaataysan dalkani Koonfur Afrika waxaan mar kale aad iyo aad ugu mahadnaqayaa muwaadiniinta Soomaaliyeed oo odayaasha iyo haweenka ay ka mid yihiin iyo ganacsatada oo waqtigooda qaaliga ahaa yani aniga shakhsi ahaan ii soo horay waxaan rajaynayaa inaan mar bulshada qaybaheeda kala gedisan aan la kulmo aniga oo ila socdaan hadduu ilaahayno ogayaasha kale ee safaaradda hawlwadanada kale ee safaaradda hadduu ilaahayno waxaan hadda aan qayb ka ahaa yani dadaalada ay dawladdu ugu jirto inay u gargaarto dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan tabartu nooc walba ay doontaa ahaato ilaahay waxaan ka baryaynaa wadan shay Soomaalidu waxay ku maamaadaa yani beledooda weel waaye ilaahay waxaan ka baryaynaa wadankeeni inuu nabadgelyo nooga dhigo waxaan ballan qaadayaa hadduu ilaahayna ka baryayaa in hawshaas uu ugu garab galo ayadoo islaamnimo Soomaalinimo iyo cadaalad ku dhisan si kastaba ha ahaatee imaashaha qunsulka safaaradda Soomaalida ee dalkani Koonfur Afrika mudane Maxamed Cali Mire ayaa noqonaya markii ugu horeysay ee qunsul Soomaali ah uu soo gaaro dalkani Koonfur Afrika iyadoo sidoo kalena imaashaha qunsulkani ku soo aadayso xilli ay sii kordhayaan dilalka lagu hayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka ganacsata dalkani Koonfur Afrika Ibrahim Matka TV caalamiga ee Somali Channel South Africa